السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا نقول حرصوا هذا ميلو بودنا دافع كجوكتين وانيقو ولاشين مروهاني دمانتين هرت ولا ليالو فيديو لايك إيسار صاحبنا كسن وجارو haddii aad tahay saaxiib nagu cusub ama marka ugu horeysa channelkeen hadda soo booqonaysin subscribe-ka nagu dhiirigeli waalidii kulamada waalid ahaa hal laba ka dhahayna Liverpool oo xasuuq geysatay adika kacsaday u dulqaata adika dhagan horyaal maqaadaysto waa u dhamaatay kaalinta 16aad ee joogta waa u dulqaadanaysin Chelsea oo kaarka roosaha inta qaadatay macalinkeeda korka fiirsanay isna roosa qabay Sterling oo Chelsea gool ku hogaamiyay Manchester City oo barankii adduunka sameysay Erling Haaland oo hat-trick ugu horeeyay Premier League dhaliyay 4 kulan 7 gool absolutely fantastic inta soo halkan ku qaada dhigi doona iyo guusha taariikhiga ee Manchester United maanta gaartay walaashiina like ku dhiirigeliya channelkana subscribe dhaha hartu kulamada waxa ugu maanta waxa ugu adka kulanka Manchester City asana ka hormari doona igu qaata asxaabe dhagiin iyo mahaya وقت بدلنا من ذيك قاعدين دونه هرتو مانشستر سيتي اتحاد استاديوم جوجتي كريستال بالاس حدي جوهري ارسنال بدرك فييرا برانكا لو سميه مانشستر سيتي قابك دفاع اي كليدتا وايها با 6 كون 3 كون 6 جول laga dhaliyay labadii gool oo laga dhalinay sad biisay ahay waa dareemi karteen labadii gool Anderson laga dhalinay waxay u ekaayeen habeenkii Champions League goolkii Benzema ma aha maswiilkii raay u dhalinaa way ekaayeen kulamada sad biisaska waa ku dhibana waayaan batata magadaasheenana waa huluf ama waa balaq labadaas midaartid u qaado alisti ciyaarta halftimeka waxa lagu maray 2 gool iyo ever idinka kama sheekeynaa waad ogtihiin laakiin tani waa Manchester City waa cadow ciilayaasha horyaalka Premier League hadii 3 gool lagu leeyahay xatee wariyaha ciyaarta ku timina wuxuu ku dhahaa naftaada ma siin kartid macnaha Man City in aad dhahdid waa laga badinaa because say u dheelayaan iyo waxaan ku markay aragtid ada isdhiibaysid dishotaha oo waxaan ku iri Crystal Palace ciyaarta dhan lagu ciyaaray qaabkii dambo Pep Guardiola waxa ka codsanaa ama taageerayaasha Citizen fans waxa ka codsanaa Pep Guardiola fariinteeda gaarsii waa idin barayaa video aan sii share gareeya ninka la leeyahay Julian Alvarez in garabka soo noo saaro Mahrez Motato Mushari naga fadhiis Mahrez marabno hadhow back up ka soo dhig marka Julian Alvarez ilkay gundigan another level wax walba waxa iiga daran xataa hat-trick Haaland waxa iiga daran asxaabay goolka Riyad Mahrez oo dhaliyo kow garabka inta dhac la soo siist alaabta dilka la dhinay harta ani goolkaas caawa ma ka seexanay ina ku riyoodo ma tagaanka baqa absolutely fantastic oo aha Riyad Mahrez bilaaway way sii socotay Haaland badbareey madax macnaha wuxuu ka dhigay tutu isla Erling Haaland farto ka dhigay Manchester City marka barankay kugu sameeyay 2 gool ka dhalinay qaybta hore waa la soo laabanaa inta fadhis inteeda kala joogto way ogtiin dhamaantiina wash lagu siinaa washamsi wax loo kala garan waayo kugu dhacayso marka still hogaamiyaasha horyaalka Premier League Arsenal waa laakiinse guusha Manchester City ee gaartay caawa maxaa ka caawiyay ee kula taa adiga hartu qaybtii dambe ciyaarta waxa ku dheeleeyay dhiida ciyaarta meesha laga baasto inta ka sokeyso Crystal Palace gurigeeda lagu dheelaayay waxaana caawiyay badalka Pep uu sameeyay Mahrez oo la bixiyo Gundogan iyo De Bruyne Gundogan iyo isku fahmayaan aba ka yaabo aniga ninkii ah Erling Haaland another level todoba waxa la heystaa 7 gool la heystaa horyaalka Premier League stillna waxa la dheel 4 kulan la dheel warka soo socda iyo wabiga yaaween soo bax Manchester City hadii 3 gool looga hormar xitay kalsooni ku qaba inay gurigeeda maanta ku badanayso hambal yaa la Citizen fans ka muwaadiniinta meel boodnida daafada ka joogtiin waa arki doona Arsenal ciyaarteeda hadda soo gali doonta halkaas inooga gudub waxa noo soo qabatiin kooxda kubadda cagta Liverpool Reds oo Anfield inta kooxda sanadkan ka soo dalacday Serbia inta gurigeeda ku qabsatay 9 gool iyo ever ka kacisay يا لوس دياسا غاري تا ألكسندر أرنولد شبق غاري وحا غاري نيكي هاد ألكسندر وو غاري فانداج وو غاري إليد مالها وو غاري وح ليفربول ويرا حستينا كلها مركا باسكت بول إلا ديلو يونكو بدل ديلو واكري فهم واي مانشستر يونايتد لبا جول إبرو كسو غراعدي فولهام بربر لغلين كريستال بالاس هيسان لغلين أديك وطالع أبو adeeg ku taala Reds waa iska qaaday tartamayaal cad waaye hadeertaana suuqa ku jiraan waxaanu ku soo darsanayaan qad dhexe intuu Alcantara ka maqan yahay maxaa ka bedelahay Jordan Kolomaad oo ku jiray markii Manchester City كامبيد أو لبوا جولي قبل وقولها ليفربول شون جولي مريسي تاريخ معناها ليفربول أنت لسنتها عيارها هافتام أفرت شن دقيقة ما أصل يعني إن الومر عيارتها هافتام كذا شون جولي قبل ويلش يوردن كلهم تاريخ إيجان مانته absolutely باركي بصوا إسكا قادين شو بحدهن جوشود جورس وريال قعنت يقصوا ديان ترتميال عدوى ليفربول هم بلي أنا لا يملوا بدون ذاك الجوكتين لكن عيارتينا
xamaasad saas nasiil lahayn oo taageerayaasha Liverpool ku raaxaysanay maane dadka cadawga ay waxay fiirsanayaan ciyaarta Man City maadaama laba gool lagu lahaa war Manchester City qof walba fiirsanaa because kubadeeda waa aragteen marka hambaliyaan leeyahay Liverpool 9 gool wax inta ku soo dhow ma aha basketball leelo musku bad cagal leelo waa kala saar waay Real Liverpool madaxa ay saarantiin waxa ay soo qabatiin kooxda kubadda cagta Chelsea ayadana waa ogtihiin dhibaatooyin Chelsea iskaga jirta macalin red card oo ka qabay xidig red card ka qaatay xitaa Chelsea ma ogi at least Chelsea ayadana waa ay gaartay guusheedii labaad ee gaartay horyaalka Premier League hal kulan waxay la soo gashay Tottenham barbaro hal kulanna waxay ku soo badisay hal gool iyo eber kulanka kalena waxa soo cabtay 3 gool iyo eber waxay kaga soo garaacday Leeds United hadeertaana maanta 2 gool iyo gurigeeda ee waxay kaga badisay Istanbul Bridge and Leicester City wax 2 gool iyo gool goolkaas ku soo dhamaaday waxaan ku hogaamiyay guushaas ninkii Raheem Sterling galga goolkood u lali goolka labaadna waxa uu dhigay ninkii Sterling ahaa goolkiisa ugu horeeyay Chelsea shabaqada uu soo gaaray horyaalka Premier League akoonkiisa uu furtay Sterling wax laga qaban karo ma la Chelsea laakiin waxa moodaa xaga gool dhalinta iyo in dhibaato ay haysto laakiin saaxiib yar adig qof koox roos qabto in koox kooy tuma qof ku dheelaysa ay ka badiso wax inta lagu soo koobi karo ma amaanay mudan yihiin wiilasha Chelsea garoonka ugu jiray roos adigoo qabtiin macalinkiina gadaal oo idin ka fadhiyo in aad guul gaarteen wax halkan lagu soo koobi karo ma ahan hambali idin leena blue ninkii Wesley Fofana heshiis shakhsiga waa la gaarteen saacadaha la soo nagu soo aadanay rajeynayaan taageerayaasha Chelsea inay ku soo dhawaaqaan wax walba isku soo dhamaadeen marka Chelsea gool muhiim ay gaartay oo macnaha iyadoo red card qabto City shock ay sameysay comeback waxa u maleedaa kooxdan masiibo qaran inay qabto hambaliga soo dhaha taageerayaasha Manchester City aniga ka koowa kooxdeeda loo soo hambaliyay u ixtiraama please Manchester City comeback ay sameysay haala wargeysad in asaa qaadanaya Liverpool iska badaaba 9 gool la dhaliyay xagga iga dhigbo marka waxa noo soo qabateen Manchester United oo u dambeeyso oo u horeysan iga la hada taageerayaasha Manchester United dad aad u ixtiraamatiin Manchester United ay hal gool ever ku soo badisay oo malabka ka macaan oo skortana ka dhanaanay ku badisay adigoo oo away waxaan ku iri in hal gool ever ku soo badisay wax fiican laakiin Manchester United dhaliilada loo soo jeedinaa saaxiibayaal ayadoo badisaadan dhaliil loo soo jeedinaa dhaliilada loo soo jeedinaa waxay tahay Manchester United mar allaale markay gool dhalisaa masiibo ku habsataa kubadda ma haysan karto baraksharaal soo saaraa boosashka meel xun la geynaa marka adoo gool dhalisay hada City Liverpool Madrid Chelsea Munich kooxaha waaweyn markay gool dhaliyaan waxay rabaan in ay kooxda barakshar gareeyaan marka Manchester waxa leeyahay gool way gaartay laakiin dhaliilo ayaa ka muuqdeen way soo kabsan doontaa kooxdan koox iska soo daala dhicisa ahayd hal gool iyo eber ku badiyeen saxiixooda cusbaa ka sameeyay wuu saftay absolutely ninkii magwa aha waa kana sateena oo maleena Ronaldo waqti dambe la keenay shaxdiisa macalinka saana u qaato 2 kulan oo isku xigto man of the match intuu ku qaato ninkii ahaa difaaci dhexe Manchester wax aqliga iimaanka galaya ma aha hambaliya idin leeyahay Manchester United adikana meesha ka joogtiin hogaamiyaasha horyaalka Premier League cabaar kadib joogdo dheeli doon Arsenal ayagana waxay keensadaan arki doonaa hadii horyaalka caawa ay sii hayaan iyo hadii ay City farta ka saaraan way arki doonaa saaxiibayaal dhamaantiin like igu dhiirigeliya channelka subscribe dhaa walaashin garab istaaga qaar badan ay idin jeena bye